Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadyaal idilkiinba meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada wararka aflaanta la xiriira ee aan caawa idiin hayno haddaan nahay bahda qorshe show. Waxaan ka codsanaynaa intaan idiin bilaabin ka hor inaad subscribe inoo saartaan islamarkaana aad share dhahdaan si aad ula wadaagtaan asxaabtiina kale ee dunida dacaladeeda kala jooga. wararka aan idiin haynana waxaa ka mid ah wiil uu dhalay atooraha caanka ah ee isla asagana ah atooro caan ah oo la filayo inuu dhowaan sameeyo filim ka hadlaya musuqmaasuqa dalkaasi Hindiya. Atoorayaal caan ah oo shacabka Hindiya ugu baaqay inay isdejiyaan. Aamir Khan oo telefoonkiisa daminaya inta laga soo saarayo filimka Last Singer iyo qodobo kale, balse aan ku horeeye kadib markii uu soo dhamaaday filimkii Bob Biswa Abhishek wiilka Cali Dheere waxaa lagu wadaa mashruuc kale oo xiiso leh, filimka Deswi oo looga hadlayo wasiir caan ah oo guuldareystay markiisii 10aad, waxaana director ka ah Tushar Jolata iyo saaxiibkiisa. ilo ku dhow shirkadda soo saarta filimaanta ayaa shaaca ka qaaday in jilaag uu bilaabi doono duubista filimkan 22 bisha Febraayo aan ku guda jirno ayaa la yiri. Dhammaan waa u dhamaaday bandowgii, waxaana xiriir joogto ah la lahaa Tushar iyo Dino si aan ugala hadlo filimkan. Ugu dambeyntiina waxaa lagu wadaa inuu sii wado xiriirka uu la leeyahay labada director ee filimkaasi ilaa laga soo saarayo ama laga bilaabayo duubista filimka. Isagoo intaa raacinaya wax yar oo ku saabsan astaamaha filimka, ilo wareedka ayaa yiri magaca filimkan waa Deswi oo tilmaamaya fasalka 10aad maadaama dabeecadaha Abhishek ay tahay sidii SSC ee fashilmay wasiirka. Filimka waxa uu ka duwan yahay filim kasta oo siyaasadeed oo laga sameeyo Bollywood-ka maadaama sheekada ay ku dheehan tahay midmaad iyo qosol badan. Kadib Deswi, AB waxa uu la midoobi doonaa ama jilaaga ama actor-ka wuxuu la midoobi doonaa John Abraham kadib sameynta filimkan ayaa lagu yiri, ama ay ka wada hadli doonaan filimkooda kale dhameystirkiisa. Atoorayaal caan ah ayaa shacabka Hindiya ugu baaqay inay isdejiyaan. Hindiya waxaa hadda ka socda mid ka mid ah mudaharaadyadii ugu waaweynaa ee xilliga casriga ah maadaama tan iyo in ka badan 2 bilood beeraleyda ka soo jeeda Punjab iyo Haryana ay isku dayeen inay codkooda kor u qaadaan kadib markii la soo saaray sharciyo cusub oo quseeya beeraleyda oo dowladda Hindiya ay soo gudbisay. Tani waxay si cad u dhalisay doodo badan oo si kulul baraha bulshada haatan ay isku wadaarsanayeen dadka caanka ah ee Bollywood-ka sida Akshay Kumar, Ajay Devgan iyo Karan Johar ayaa dadka ka codsaday inay u midoobaan inta lagala baxayo dhibaatada ama xal laga helayo. Akshay Kumar oo aragtidiisa la wadaagayay bulshada isla qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ee gaarka ah kaasoo u qornaa sidan ayaa yiri beeraleyda waxay qayb muhiim ah ka yihiin wadankeena, dadaalada lagu wado in la xaliyo arrimahoodana waa muuqdaan. Ayuu taageero qaraar si afgarad ah halkii aanu fiiro gaar ah u yeelan lahayn cid kasta oo abuureysa fidno, ayuu yiri. Ajay Devgan atooraha caanka ah ayaa bartiisa Twitter-ka asna waxa uu soo dhigay qoraalkaasi ka duwan oo uu ku taageerayo isla qoraalkaasi. Ha u dhicin wax dacaayad been abuur ah oo ka dhan ah Hindida ama siyaasadaha Hindiya, waa muhiim in midnimo la isla taago saacadan iyo wixii khilaaf ah meel la iska dhigo, ayuu yiri. Atooraha caanka ah ee lagu magacaabo Aamir Khan ayaa telefoonkiisa daminaya inta laga soo saarayo filimka Last Singer sida wararku ay sheegayaan. Ka filo Aamir Khan inuu shaashadaha waaweyn ee ka sameeyo wacdaro cajiib ah oo noqon doonta. Maantase waxaa maalmaha sheeko aan la filaynin ku saabsan Aamir Khan, laakiin waa mid aan quseynin shaqada shaashadaha ee looga bartay. Sida laga soo xigtay warbixinada shabakadda internetka ee online-ka wax u tabisa, jilaaga ayaa sheegay inuu tagayo ama uu ka tagayo telefoonkiisa gacanta ilaa laga sii deynayo filimkiisa Last Singer ee soo socda. Sababta ka dambeysa inuu telefoonkiisa xirnaado ayaa uusan dooneynin wax caqabad ah inuu ku sameeyo telefoonka shaqadiisa. Jilaaga qalbigiisa iyo naftiisa gelinaya filimka soo socda waxa uu doonayaa inuu hubiyo inuusan ku dhibsan telefoonkiisa gacanta
oo wada ognahay inuu muhiim u yahay nolosha aadanaha maadaama uu yahay mid ka mid ah aaladaha lagu xiriiro, iyadoo ay taasina muujinayso sida uu muhiimad gaar ah u siinayo soo saarista filimkiisa. Inta ay nooga idiliin daawadayaal wararkan idinku talagalnay aflaanta oo aad kala socoteen Qorshe Show, waxaan ka codsanaynaa subscribe inoo saartaan si aad ugu xirnaateen barteena aynu ku leenahay YouTube-ka, isla markaana aad gambaleelka furataan si aad mar walba u heshaan wararkaan soo dhigno. hadduu Allah awood leh raali ka noqdo, waa idinkaga mahad celinaynaa sida aad inoola socotaan saacad walba.